Assalaamu calaykum. Maanta waxaan jeclaystay inaan iisoo gudbiyo filim lagu magacaabo Squid Game. Filimkaas oo isbuucyadan haystay baraha bulshada. Song Gi-yeon waa wiil dhalinyaro ah kaasoo hooyadiis kula noolaa guri yar, wuxuuna tuuranayay lacagtii uu soo deensaday. Balwadiisana waxay ahayd khamaarka, wuxuuna dakhligooda ka dhigay mid aad u hooseeya. Maalin asigoo quraacanaya ayaa hooyadiis waxay siisay lacag si uu ugu soo iibiyo gabadhiisa hadiyadda dhalashadeeda. Gi-yeon xaaskiisa hore waxay guursatay nin lacag leh, asigana muu ogoleen inuu arko gabadhiisa. halka Gi-yeon oo aad u xiiseynaya inuu arko gabadhiisa maalinta dhalashadeeda. Hooyadiisa wuxuu ka codsaday inay ugu soo darto lacag kale si uu gabadhiisa hadiyad fiican ugu gado. Hooyadiisa waxay ku dhahday ani ma shaqeeyo, waxayna ugu dartay lacag yar. Markii hooyadiisa baxday, wuxuu arkay kaarka hooyadiisa, wuxuuna kala baxay lacag badan asigoo la socdo saaxiibkiisa qamaarkiis la ciyaarayeen. Lacagtiina waxay dhigeen tartanka fardaha. Marar badan ayuu khasaaray, mana uusan joojin inuu lacagtiisa dhigo tartankaasi. Ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay lacag aad u badan. lacagtii qaar ka mid ah ayuu bangiga dhigtay, wuxuuna u baxay banaanka si uu ugu dabaaldego nasiibkiisa. Wuxuuna geeskiisa ka arkay rag caraysan oo dhankiis u soo socdaan, wuxuuna isku dayay inuu ka cararo. asigoo ka cararayo ayuu wuxuu ku dhacay gabar. ugu dambeyntii raggii way qabteen, waxayna weydiiyeen lacagtooda. wuxuu isku dayay inuu u celiyo lacagtooda, wuxuuna jeebkiisa geliyay gacantiisa, wuxuuna ogaaday in lacagta lagala jeebsiibay eena ka jeebsiibtay gabadhii ay marka ku dhacaysay. raggii uma naxariisan, wejiga ayuu ka feeray, wuxuuna sanka ka geliyay kiyaawe. waxayna ku dhaheen waxaa kuu soo laaban doonaa bil ka bacdi. wuxuu dib ugula baxay lacagtii oo dhigtay bankigii, mana aysan ku filneen inuu u gado gabadhiisa hadiyad. wuxuu isku dayay inuu ku guulaysto mashiinka boombilada, laakiin nasiibkiisa kama saacidin inuu ku guulaysto xataa hal boombilo. wiil yar oo geeskiisa taagnaay ayaa isku dayay inuu caawiyo. ugu dambeyntii wuxuu ku guulaystay hadiyad ku jirtay bokis madow ah, wuxuuna u dabaaldegay guushiisa yareed, wuxuuna kasoo tegay asigoo u mahadcelinaya wiilkii yaraay. gabadhiisa wuxuu u kaxeeyey Tiyok Bokito Stall, labadoodana waxay ku raaxaysanayeen cuntadooda. gabadhiisa iyadoo walwalsan ayaa waxay ku dhahday maxaa waaye nabarka ku yaala wejigaaga? wuxuuna ku dhahay waa qaniyada kaneecado kaliya. gabadhiisii wuxuu siiyey hadiyadda ugu talagalay, asigoo aanan fiirin wax gudaha dhexdeeda ku jiro. gabadhiisii ayaa la yaabtay markay aragtay qor u samaysan sida jansiigar oo kale. Gi-yeon wuxuu ka qaaday bistooladii, wuxuuna u ballan qaaday in hadiyad ka fiican u keeni doono sanadka dambe. ugu dambeyntii wuxuu u keenay gabadhiisii hooyadeeda, kadib wuu u macasalaameeyey labadooda. asigoo joogay train stationka ayaa waxa uu soo dhowaaday nin si fiican u labisan, wuxuuna infaadgareeyey Jihan si uu la ciyaaro game lagu magacaabo Dadji. halka gameka uu yahay in la rogo kaarka iyadoo lagu dhufanayo kaar kale. wuxuuna u ballan qaaday Jihan haddii uu guulaysto 100,000, haddii uu guuldareystana inuu dharbaxshay doono wejigiisa. ayagoo ciyaaraya gameka, Jihan wuu guuldareystay marar badan, waxaana lagu dhuftay dharbaxsho badan, halka dankiisa ay ka muuqdeen dhaawacyo aad u xun, laakiin asiga ma isdhiibin. ugu dambeyntii wuu u guulaystay, wuxuuna helanay lacagtii loo ballan qaaday. ninkii sidii fiicnaa u labisnaa wuxuu gacantiisa kasoo bixiyey kaar, wuxuuna weydiiyey haddii uu rabo inuu ciyaaro geeman badan sidan oo kale ah in uu soo waco nambarkan. asigoo ku wajahan gurigiisa ayaa wuxuu la kulmay islaan duq ah, wuxuuna ku dhahay aawi saaxiibkayga Sangu. ayada way ku faantay wiilkeeda, waxayna ku dhahday wiilkayga safar ganacsi ayuu aaday USA. Gi-yeon iyo hooyadiisa oo casheynaya ayaa hooyadiis waxay ku dhahday qoyska xaaskaaga hore waxay u socdaan USA, halka uusan awoodi doonin asiga inuu la kulmo gabadhiisa mar kale. Gi-yeon wuu ka naxay, laakiin ma awoodo inuu waxba ka dhaco arrintaas, maxaa yeelay xaaskiisa hore waa u dhammaystirtay gabadheeda nolosheeda. asiga waxaa problem ka haystay dhanka dhaqaalaha. habeenkaasi wuxuu go'aansaday inuu garaaco kaarka nambarkii oo siinaya ninkii si fiican u labisnaa, wuxuuna ku balamiyey meel u dhoweed. waxaa hortiis lagu baakimo gaari, waxaana laga codsaday inuu gaariga soo galo. markii uu gaariga sidaa u galay, waxaa la buufiyey qaac, meeshii ayuuna ku dhacay. markii uu soo kacay, Gi-yeon wuxuu arkay inuu ku jiro bangi sariir ah, waxaana ku hareeraysan dad badan oo asiga lamid ah. dharkiisa waa la bedelay, wax walba uu lahayna waa laga qaaday. qof walba oo aan arkayna wuxuu ku wareersayaa nafsadiisa. dhammaantood waxaa lagala socdaa kaamirada. Gi-yeon wuxuu la kulmay nin jaakadiisa ay ku qoran tahay 001, halka Gi-yeon ay jaakadiisa ku qorneed 456. ninkii ayaa wuxuu ku dhahay waxaan la rafaadsanaa burada maskaxda. ayagoo sidaas u wada hadlaya ayaa waxaa attention-kooda qaatay dagaal. gabadhii ka jeebsiibas lacagta Gi-yeon maalin hore iyo waxaas dagaalayeen nin u muuqday inuu yahay gangster. labadooda waxaa kala dhex galay. Gi-yeon wuxuu qabtay kulliyatii gabadhii, wuxuuna ku dhahay aawi lacagteedii. doodooda waxay joogsatay markay arkeen rag ku labisan dharka guduudan iyo maask. way soo dhoweeyeen dadkii, waxayna ku wargeliyeen in la ciyaari doono 6 game 6 maalmood soo aadan. kuwii ku guulaystaa 6daas game waxay ku guulaysan doonaan lacag aad u badan. mid ka mid ah dadkii oo lagu magacaabo Sangu, Jihan ay ahaayeen caruurnimadooda saaxiibo, ayaa loo maleynayay in uu safar shaqo u tagay USA, ayadoo loo eegayo hadalka hooyadiis dhahday
wuxuuna sheegay in booliiska ay raadinayaan asiga maxaa yeelay macaamiishiisa waxay ku leeyihiin 550,000 sidaas darteed ayuu hooyadiisa ugu sheegay beenta. wax yar kadib shay wareega ayaa kor laga soo dejiyay waxaana istaafiyad u sheegeen dadkii in markay ciyaarta ku dhameystaan in laga buuxi doono lacag. qof kasta oo ayaga kamid ah wuu wareeray laakiin si kasta ahaatee way aqbaleen inay ciyaaraan geemka. kadib waxay siixeen buug ay ku qoran tahay 3 sharciyo. sharciga koowaad, ciyaartooyda looma ogolo inay geemka joojiyaan mar haddii uu geemka bilaabmo. sharciga labaad, ciyaartooydii diida inay ciyaaraan waa la dili doonaa. sharciga saddexaad, ciyaarta waa la jooji doonaa haddii ay isku raacaan dhammaan dadkoo dhan. qof walba wuu saxiixay waxayna isku diyaariyeen inay ciyaaraan ciyaarta koowaad. halka qolalkay marayaan loo diyaariyey meel ayaga lagu kala saarayo. tartamayaasha mid walba ayaga kamid ah waxaa laga qaadaya sawir kadib waxaa loo dii doonaa mainfieldiga taasoo ah xaalad naxdin badan. halka caruusada ay taagneed gees. Gi-hun wuxuu u dhawaaday saaxiibkiisa wuxuuna ku dhahay maxaad hooyada beenta ugu sheegtay. ayagoo isla hadlaya waxaa soo dhex galay ogeysiis waxaana la ogeysiiyey in ay ka gadaal maraan xariiqada cadda. qof ku jira xarunta dhexdeeda oona ahaa madaxa geemka ayaa qof soo wacay wuxuuna ku laabtay kursigiisa waxaana hortaala shaashad weyn taasoo uu ka daawanayay ciyaartooyda. waxaa loo sheegay in ciyaartooyda kuwaad la dhaho red light green light ayna haystaan si ay u dhammaystiraan 10 daqiiqo. markii ay gabadha dhahdo red light way soo jeesanaysaa qof walbana waa inuu istaagaa. qofkii la arkaa asigoo dhaqaaqayo waa la dilayaa. markii ay gabadha dhahdo green light way sii jeesanaysaa qof walba waa inuu dhaqaaqaa. markaas ciyaartana way bilaabatay ilaa ugu dambeyntii ay gabadha qabat nin dhaqaaqaya kadibna waa la dilay. dadka kale maysan fahmin wax meesha ka socdo waxay isku dayeen inay ciyaaraan wareegga labaad laakiin markay arkeen dad badan oo la dilaayo dhammaantood waxay isku dayeen inay meesha ka cararaan. dhammaantoodana meesha asaas lagu wada dildilay. meeshii dhan waxaas qabsaday dhiig iyo dad dhintay waxaana meesha kusoo haray tartamayaal yar kuwaasoo la istaagay cabsi awgeed. halka Gi-hun oo ku qalalay dhulka markii uu Sang-woo dhaqaaq ayuu dhaqaaqay wuxuuna ku dul istaagay oona dhacay qof kale midkiisa asoo sii dhacay waxaa qabtay nin lagu magacaabo Cali. dad badan ayaa dhintay mar walba oo sii socda geemka. qaar kamid ah ayaa ka gudbay geemkii ugu horeeyay waxaana kamid ahaa Gi-hun, Sang-woo iyo gabadha jabsiifka ahayd iyo odaygii iyo ninkii gaangiistarka ahaa iyo ninkii Gi-hun badbaadiyay oo magaciisa la dhahaa Cali. markii kaamirada kor loo qaaday waxaan aragnaa in ay ciyaarta ka socoto jasiirad xaruntuna ay ku taalo dhulka hoostiisa. istaafyadana waxay bilaabeen inay aruuriyaan meydka kadibna ay ku ridaan foornada. tartamayaashii guulaystay waxay dib ugu laabteen qolkoodii ayagoo la jareynaya waxay goobjoog u ahaayeen. Gi-hun wuxuu u mahadceliyay Cali maadaama uu badbaadiyay noloshiisa. istaafka waxay soo galeen qolkooda wayna u hambaliyeen maadaama ay dhammeeyeen wareegooda koowaad. nambarka tartamayaasha waxay kasoo yaraadeen 456 waxayna imaadeen 201. taas waxay la micno tahay 255 oo tartamayaal ayaa la dilay. gabar ayaa jilbada dhulka dhigtay waxayna ku dhahday isii daaya aan iska baxay xuriyadeedin isiya. qaar kale ayaa kusoo biiray waxayna sameeyeen sida ayada sameysoo kale. qof walba wuxuu codsanaya in lagu sii daayo nabad. si walba ahaatee istaafku waxay xasuusiyeen sharciga labaad ee ciyaarta haddii rabaan inay joojiyaan ciyaarta waa la dilayaa. laakiin Sang-woo ayaa wuxuu xasuusiyey sharciga saddexaad oo ahaa haddii dadka oo dhan isku raacaan in ciyaarta ay ka baxaan in la sii day doono. inta codaynta la bilaabin ka hor istaafku waxay dadka tuseen lacagtii boqolaal oo kaash ah waxayna ku dhaheen tartamayaashii guulaystaa waxay gurigooda u qaadan doonaan 38 milyan. laakiin haddii go'aansadaan inay joojiyaan inay ciyaaraan qoyska oo qofkaas ka dhintay waxaa la sii doonaa 85,000 oo dollar. dadkii haddii u codeynaya in ciyaarta la joojiyo qaar kamid ayaa u codeeyay in ciyaarta la sii wado halka laba cod ay isla simanaayeen. ugu dambeyntii odaygii ayaa wuxuu u codeeyay in ciyaarta la joojiyo. ugu dambeyntii waxaa loo ogolaaday inay guryahooda aadaan. istaafka waxay ku dhaheen haddii dadka badan codeeyaan si ay u ciyaaraan ciyaaro kale waa lasoo xiriiri doonaa. qaybihii xigay Sang-woo iyo Gi-hun waxaa laga soo tuuray gaariga ayagoo gacmaha ka xiran sidii si lamida ayaa lagu sameeyay Cali iyo saaxiib. Gi-hun si toos ah wuxuu aaday police stationka wuxuuna sheegay sida loo afduubay. booliiska ku adkaatay inay rumaystaan maxaa yeelay qofkii afduubay inuu asiis dib u soo daayay. codayntuu sameeyay darteed in lagu soo daayay. nin booliis ah oo meesha taagnay oo lagu magacaabo Jin-ho ayaa attentionkiisa dhan wuxuu siiyey kaarka oo ninkan gacanta ku hayo. Gi-hun wuxuu dib ugu laabtay gurigiisa wuxuuna arkay in hooyadiis ay maqan tahay waxaana loo sheegay in hooyadiis aad u xanuunsan tahay. Gi-hunna si dhaqsi ayuu u cararay isbitaalkii wuxuuna lugaheeda ku arkay nabaro badan. dhakhtarkii ayaa wuxuu ku dhahay waxa kaliya hooyada badbaadi kara waa qalliin laakiin ma awoodin asiga. Jin-ho ayaa weydiiyay hooyadiisa wax ku saabsan arrinta walaalkiisa halka walaalkiis la laayahay maalmo yar. qolka walaalkiisa wuxuu ku arkay kaarkii oo Gi-hun police station ku tusay mid lamid ah wuxuuna isku dayay inuu daba galo Gi-hun oona weydiiyay wax ku saabsan kaarka. gabadhii jabsiidka ahayd waxay rabtay inay la kulanto walaalkeeda. waxaa geedkeeda fadhiyay gabar yar oo kasoo baxsatay North Korea halka waalidiinteed ay joogaan North Korea. gabadhii yar ayaa maslaxeysay waxay isku dayday inay ku laabato meeshii si ay u soo ururiso lacag badan halka Cali oo uu ku laabtay shaqadiisii si uu la kulmo booskiisii. wuxuuna ku dhahay waxaan ugu imaaday Pakistan si aan lacag u shaqeeyo 6 biloodna lacagteeda lima siinin. waxaa gurigeyga igu sugaya xaaskeyga iyo cunugeyga yaraa.
si uu qoodiyo ayaka halka cali booskiisa hortaal xoogaa lacaga laakiin uu diiday inuu siiyo cali ninkii wuu riixay wuxuuna ku ruuxay dhanka mashiinka farihi ayayna ka jarjartay calinta ninkii daaya ayuu lacagtiisa qaad meeshuna iskaga cararay markii guriga yimaad lacagta wuxuu gacanta ka saaray xaaskiisa wuxuuna ku dhahay adii cunugeyga u laabta Pakistan meeshan iskaga carara wuxuuna u xaqiijiyay inuu ka daba imaan doono hab ayuu si xaaskiisa markii ugu dambeysay halka Sangu oo wacay hooyadiisa oo ku dhahay been ayaa ku sheegay mana aadin USA waxayna ku dhahday marka imaanaysid waxa diidahay keenin mobilkana meeshaas ku go'ay islaantii duqda waxa uu maaday booliis waxayna wax ka weydiiyeen wax ku saabsan wiilkeeda waxayna u sheegeen in uu lacag ka xaday macaamiishiisa waxayna ku dhaheen in soo wargeli haddii aad asiga aragtid Ji-hoon ma haysan wado uu ku badbaadiyo hooyadiisa wuxuu u tagay xaaskiisa hore wuxuuna ka codsaday inay caawiso way ka diiday inay caawiso ay ka wada hadlayaan waxaa imaaday ninkeeda iyo ilmaheeda asigina iridoo kasii bax markiiba waxaa gadaal lagu wacay ninkeedii wuxuuna ku dhahay inuu mar dambe soo agdhawaan qoyskiisa mar labaad Ji-hoon wuxuu feer ugu dhuftay wajigiisa wuxuuna ka caabinayay inuu mar dambe ka fogeen gabadhiisa laakiin gabadhiisa ayaa aragtay asigoo feeraya aabaheeda cusub waxay aabaheeda u dayday sinii jaba ugu dambeyntii wuxuu ku laabtay gurigiisa asigoo u muuqday in dhammaan laga adkaaday iyo inuu jirin qof asiga caawinaya halkii ninkii booliiska ahaa Ji-hoon oo ku sugayay ninkan gurigiisa hortiisa si uu u weydiiyo wax ku saabsan kaarka laakiin Ji-hoon wuu iska indhatire wuxuuna ku dhahay waan cabsanaa markii aan booliisku soo dacweynayay wuxuuna go'aansaday inuu ku laabto halkii mana rabin ninkan inuu wax qalqalaad iyo wax mashaakil ku furo Junho halkii uu rabay inuu su'aalo weydiiyo halka Ji-hoon oo iska indhatire oo si socdo qolkiisa asigoo xiray yaridiisa waxa ku taagaysma kaarkii markuu fiiriyay wuxuu go'aansaday inuu dib u waco sid mar labaad loo qaato asiga sidaas si lamida Sangu odaygii iyo gangsterkii iyo Sia Park iyo Caliba waxay go'aansadeen inay dib u sii wataan geemkooda qaybtan waxay ku dhamaatay ayagoo gaariga galeen kadib qaac lagu shiday meeshiina ku dhaceen waad ku maasantaa daawashada filimkan fadlan subscribe dheh si aad u hesho muuqaalada lamida